Muddo 700 sannadood ah gobolka Bihar ee dalka Hindiya waxaa ka jira suuq haweenku ka soo iibsadaan ragga ay doonayaan inay guursadaan. Waa sida adiga oo dukaan aaday kadibna ka soo iibsaday wixii aad u baahnayd. Gabdhaha guurdoonka ah waxaa socdaalka dukaameysiga ah ku weheliya qoysaskooda. Sidaas darteed sanad kasta kumanaan kun oo rag ah ayaa ku kulma gudaha Biibal hoostooda ee suuqa degmada Madhubani iyagoo sugaya in la iibsado ama gabar ay qaadato. Waxaa la yiraahdaa Southern waxaana suuqaasi ama dukaameysigaasi lagu jiraa iibsiga ragga waxaanu socdaa 9 maalmood. Waana dhaqan iyo caado oo uu bilaabay Suldaan Ratihari oo hogaaminayay boqortooyadii Karnat muddo hadda laga joogo 7 qarni ka hor. Ujeedada u bilowday suuqan ayaa lagu sheegay in gabdhaha loogu fududeeyo inay kala doortaan kadibna xushaan qofka ku habboon ragga 10 suuqa si ay xaaskiisa u noqoto. Ragguna waa kuwo ka kala yimaada meelo fogfog. Nin wax walba qiimihiisu waa inta uu aqoon leeyahay, heer jaamacadeed ahaan iyo inta xogtiisa jireed iyo dadnimadiisu dhan tahay. Waxa kale oo xusid mudan inay tixgeliyaan gabdhuhu in ninkaas uu ka soo jeedo qoys sumcad leh. Raggu waxay hore u soo qaataan dhammaan aqoonsiyadooda waxbarashada sida shahaadooyinkooda dhalashada, markhaatiyada kale ee muujinaya wanaagooda. Kadibna markay gabdhuhu ku qanacdo waxaa laga gudbaa qiimaha iyo gorgortanka. Markaas kadib ayaa la isku fahmaa iibka. Ninka ayaa si kastaba dabagala afadiisa si uu saygeeda u noqdo. Laakiin alaaba go'aanka kama dambaysta ah waxa gabadha u gaar ah qoyskeeda iyaga oo isku barbar dhigaya tayadiisa aqooneed iyo dabeecadiisa. Waxaana sanad kasta fogaan dheer uga yimaada ragga iskaabulada ama dababka aan weli guursan kuwaasoo rajeynaya inay ku soo baxaan xulashada koowaad ee gabdhaha ragga iibsanaya. Hindiya waxaa sidoo kale ay leedahay suuq gabdhaha guurdoonka ah lagu iibsado kaasoo gashaantida lagu xusho quruxdeeda, nadaafadeeda iyo dabeecadeeda. Waxaana la yiraahdaa Hayudati. Nafiso Qorne, warbaahinta SB TV, magaalada Muqdisho.